السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا حوغا يوتيوب كي وان كيرا سيحدي سببتو السفر بان كجري حوغا إماراتك iyo عمان ayaan soo booqday asxaab iyo arday jooga wadamada ayaan ku soo booqday marka alxamdulillah waa soo noqday ku soo dhawaada Somali Cryptofolio kanaalka YouTube-ka ee aan kaga hadalno arrimaha cryptocurrency iyo waxyaalaha ku saabsan. marka ugu horeysa ku saliya nabigeena xabiibkeena عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما wararka markan baari saaka subaxii kan warkan bay soo jiiday wuxuu yiri price-kii iyo qiimihii cryptocurrency-ga kicitaan buu ku socdaa maalmaha kan waliba maanta aynu ka hadlayno ay talaata tahay bishii koowaad toddobadeedii 2025 sababtan waxaa keenay buu yiri kicitaanka iyo faa'iidooyinka laga arko bitcoin-ka ee waliba si aad u fiican ah taas oo warar iyo reportyo ay ka soo baxeen inuu madaxweynaha Mareykanku Donald Trump inuu tiimkiisa waqtigan xaaliga ah madaxtooyada markuu baaritaan la sameeyay inuu cashuur saari doono cryptocurrency-ga aanan ahayn cashuur dhib badan oo aqal cudwaaniya macnaha waa maxay sida مثلا dawladaha qaarkood waxay koranayaan haddii crypto dawladda loo fasaxo in dadku ka shaqeystaan waxaa laga qaadayaa 30% ama 40% taas dabcan wax moogtay waa wax aad u adag weeye laakiin isagu wuxuu yiri aqal cudwaaniya yani macnuhu wax weeye wax yar oo basiit ah ayaan ka qaadi doonaa saas u jeeda taasna waxay keentay inay crypto kor u kacdo bitcoin kor u kacdo dadkii oo dhan farxaan oo yiraahdaan Trump baa meesha noo kala kiciyay taasna waxay keentay inay altcoins-kii ama العملات البديلة waxa loo yaqaano altcoins البديلة dad maqashid البديلة العملات البديلة waa altcoins-ka yani waxa aan bitcoin ahayn oo dhan waxa loo yaqaana altcoins marka wuxuu yiri halka waxa lagu arkay suuqa cryptocurrency-ga faa'iidooyin aad u fiican xaqiiqatan sanadkiina dhaaf laano bitcoin-ku boqolkiiba uu dhaafay taasna waxay ahayd xaqiiqatan wax cusub oo markii ugu horeysay dhacda waliba gaar ahaan marka la eego bishii November iyo December markii uu ku guuleystay Donald Trump inuu madaxweyne ka noqdo America marka min bilowga sanadkan cusub waxa la yiri arrimihii cryptocurrency-gu power bay yeelatay oo isbedel weyn ba ka dhacay taasna waxay noqotay inay cryptocurrency noqoto qayb aan ka maqnaan karayn nidaamka dhaqaalaha ee caalamiga ah halkan waxaan ku aragnaa arrin aad loogu farxo waxa la yiri ومن المتوقع أن تشهد العملات الرقمية المزيد من الصعود خلال العام الجاري وأن يصل سعر البيتكوين إلى $200,000 بحلول نهاية 2025 وصادلوية in suuqa cryptocurrency-gu kicitaan weyn sameeyo sanadkan ku jiro 25 la socda khayarta dadka ka maqan crypto la socda berigi dhowt markan oran jiray bitcoin-ku 15,000 16,000 17,000 buu marayaa ka faa'iideysta dadkii galay maanta waxay ka heleen qofkii xabad kaliya iibsaday 15 ku turtay wuxuu helay maanta 100,000 buu haystaa ku jira walletkiisa ma sha Allah waynu aragnaa lacag badan weey oo dad baa xitaa 2 bitcoin iibsaday qaar baa half iibsaday marka wixii ay sugayeen way heleen hadda wuxuu ku leeyahay sanadkan aynu ku jirno waa an yasila sicru البيتكوين ila 200,000 waa laga yaabaa price-ka oo maanta maraya intuu maanta maraya price-ka oo maanta maraya 100,000 iyo xoogaa inuu gaaro $200,000 bixuluul nihayat 2025 yani dhamaadka 2025 ka laga yaabaa inuu $200,000 gaaro waa saadaal anigu taama oran laakiin waa saadaal khubarada adduunka ugu waaweyn ka sheekeeya ayaa taa sheegay markii khubaradu qaarkood yiraahdeen bitcoin-ku wuu gaari doonaa 100,000 soo taaban doonaa wuuna dhaafi doonaa sax bay noqotay waa gaari tan lafteeda lima la maxaa dhacay maybe inuu gaaro maybe not maybe inuu gaaro 120,000 140,000 maybe inuu 200 dhaafo maybe inuu siduu yiri ninkii berigi makaafi muxuu yiri berigi wuxuu yiri bitcoin-ku gaari doonaa 1 million mid kalena wax cajiib oo sheego wuxuu yiri bitcoin-ku 10 sano soo socda laga yaabaa inuu gaaro 20 milyan xabadii kaliya laana waxan waa wax naadir ah waa sida diamond-ka kale waa naadir weeye waa diamond-ka kale weeye waa sida diamond-ka kale diamond-ka lama helo waa naadir marka bitcoin-kuna waa adduunka oo dhan waxa lagu talagalay 20 milyan oo xabadood kaliya diyaa kala qaybsanay hadda waxaan marnaa 8 bilyan oo population-ku 8 ilaa 9 bilyan maraya population-ku marka la tiriyo dadka adduunka ku nool 8 ilaa 9 bilyan sooma 8 baa ugu dambeysay markii la tirinayo ma loo qaybin karaa waliba 20 milyan hadda ma gaadhin badan bay u baahantay waqti sanado badan bay u baahantay si loo dhameeyay miningkiisu waa easy maaha hadda waka wuxuu marayaa 101 101,675 marayaa xataa waxaad dhigi kartaa total supply-giisu ilaa inta la maangareeyey waa 19.8 milyan weeye max supply-guna wuxuu ku buuxsamayaa 21 milyan buu ku buuxsami doonaa marka iminka day waxaa u hadhay taqriiban 1 milyan iyo xoogaa baa u hadhay taasna waxa lagu leeyahay waxay qaadan doontaa waqti aan yareyn waqti dheer bay qaadan doontaa sababtoo ah waxa adkaanaya mining difficulty waxa loo yaqaano sheeko dheer bay geliyaan waxyaalo badan baa jiro moogtahay soo socda marka halka milyan si loo mine gareeyo waqti dheer bay qaadan doontaa
waqti dheer weliba aan yareen bay qaadan doontaa sanado aan la tirin karin sanado aad u dheer bay qaadan doontaa marka 19.8 milyan oo xabadood yaa kala qaybsanaya haddii ba lagu leeyahay dowladda ingiriisku waxay haysataa 60 kun oo bitcoin dowlad dhan weeye oo ku leeyahay 60 baan haysanaa kambaniyada qaar baa haysta 200 kun oo bitcoin kambaniyada qaar baa haysta 20 kun oo bitcoin qaar baa haysta 30 kun qaar baa haysta 40 kun oo bitcoin waad arkaysaa hal mar oo 10 kun oo bitcoin oo meel loo wareejiyay oo haddana wallet laga soo saaray marka waxan waa kanzi waa kanzi dadkii zaman ka soo qaatay jajab yar walow xataa jajab yar iska macquul ah mustaqbalka hadduu gaadho 10 milyan xabadii kaliya gaadho wallahu aclam si sheegayaan waa isbedel weyn oo ka soo socda adduunka waxaan jeclahay insha Allah newska yar in aynu ka faa'iideysanay oo ay inoo noqotay wax de bushrad khayr oo dadka ku jira cryptocurrency-ga niyadoodu kor u kacdo oo insha Allah suuqa laga wada faa'iideysto insha Allah taala dadka cusub ka baqayana inay suuqan ka baqan suuq nadiif oo xaqiiqatan marka insha Allah newskan intaasaan ku soo dhameynaya inta aynu ku kulmi doono insha Allah warar cusub iyo video cusub waxaan idin leeyahay markasta ku xidhnaada kanaalka supportka siiya like ha ilaawina share ka ilaawina commentada ku soo qora markastana cryptocurrency-ga adoo ka shaqaysanaya raadi xalaasha meesha xalaasha ka shaqayso kana taxadar koonanka xaraanta ah baaritaankaagana samee si Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalkaaga kugu barkeeyo walaalkiin Axmed Aadan weeye oo idin leh xayaakum Allah bayaakum wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh